Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhowaada channelka waa mar kale iyo weli fiideo cusub. Maanta waxaan idiin soo diyaariyey sheekooyin baqdin leh oo ka dhacay Instagram-ka. Waxaana laga yaabaa inaad ka heshaan. Markaad ka heshid fadlan subscribe saar channelka, videogana like saar, asxaabtaada kale la wadaag. Waad ku mahadsantay daawashada videogan. Aynu galna videoga maanta. Waxaan idinku soo gudbinayaa sheekada sidii ay dhacdooyinka sheekadoo dhan baan igu dhaceen, si aad si fudud u fahantaan sheekada. Waxaana fiican inaad earphone ku dhageysatid sheekada, waayo waxaan ku soo dari doonaa sound effects kuwaasoo jawiga sheekada si fiican kuu gelinaya. Anigu waxaan ahay shakhs akoon ku leh Instagram-ka. Akoonkaygaasna waxaa u follower 1,100 qof. Qof kastoo soo gala akoonkayga private maaha oo wax kastoo ku jira sawiro iyo fiidooyaba wuu eegi karaa. Dabcan sawiradan soo dhigi jiray akoonkaygu waxay ahaayeen qaar shakhsi ah. Qofka commentiga kasoo bixinayana waxay ahaayeen badankoodu saaxiibaday, walaaladay iyo weliba dadkaanu qaraabada nahay, ilaa uu maalinka la yaab kala yimid mooyaane. Akoon aan markii ugu horreysay arkayo, cidda leh iyo cidda ka dambaysana aanan garanayn, magaca ku qoranna aanan garanayn. Sidoo kale commentiga uu kaga soo bixiyay sawirkaygaasna wuxuu ku soo qoray erey la yaab leh oo ah iska waran. Waxaan idhi waa caadi, waxaan way dhici karaan, qofkuna commenti uu ka soo bixin karaa sawirada. Laakiin waxaa la yaab noqotay maalin kastoon soo dhiga sawir, qofkani commenti ayuu ka soo bixinayay, weliba wuxuu keliya ku soo qorayay iska waran. Mowduucu la yaab buu igu noqday. Waxaan galay qofkan akoonkiisa, waxaana ku arkay 3 sawir oo aad u baqdin badan. Magaciisu aad ayuu baqdin badnaa, waayo magac la yaab leh ayuu ku qortay. Macluumaadka iyo baahihiisana waxba kuma qornayn, xataa meesha uu degan yahay locationkiisa. aad ayay la yaab igu noqotay. Cajiib, arrintu la yaab bay igu noqotay. Akoon sawir kastoon soo dhiga commenti ka soo bixinaya, weliba kelmad qura oo ah iska waran. Meesha waxbaa ku jira. Wuxuu waqtigu socdaba waxaan soo dejiyay ama soo dhigay sawir kale anigoo sugaya inuu qofkaasi commenti ka soo bixiyo. Laakiin markan waxaa kadis ugu noqotay inuu qofkaasi igu soo galay qaybta directiga, isagoo ii soo diray adigu aad iyo aad baad u qurux badan tahay. Waan daalay, yacni waxaan ka daalay qofkan inaan ogaado, wuxuu doonay inaan ogaadaan ka daalay. 10 minute kadib waanu jawaabay, anigoo 10 minute ba ka fikiraya akoonkiisa baqdinta lahaa iyo sawiradii baqdinta lahaa uu soo gelinayay. Waanu jawaabay, waxaanan u qoray waad mahadsan tahay. Uu akhriyay message-kii, iimaan u soo jawaabin. Waxaan bilaabay inaan iska iloobo arrintii, amaba aanan dan badan sii siin oo aanan ka fikirin. Maalmo kadib walaalka ayaa akoonkiisa soo dhigay sawirkaas oo aniga iyo isagu aan ku wada jirno, annagoo hor fadhina gurigayga hortiisa. Hadda mowduucuu ka baxay akoonkayga, akoonka walaalkay ayuu wareegay. Musiibada ayaa ah in shakhsiga laftarkiisii uu comment ka soo bixiyay sawirkaas, isagoo soo qoray waad ka qurux badantiin sidaan filayay. Walaalkay waxba kuma ogeyn waxa meesha ka dhacaya, laakiin waan uga waramay wax kastoo dhacay iyo dhaqamada la yaab kale ninkan iyo shakhsiga aan la garanayn uu samaynayo. Wuu naxay walaalkay markaan tafaasiisha sheekadan soo dhacday uga sheekeeyay. Waxay maalmuhu socdaanba, habeenada ka mid ah oo uu waqtiguna aad u dambeeyay, ku dhowaad 12 habeenimo, ayaa waxaan lahaa kulan aad muhiim igu ah oo aan inaan tago ku khasbanaa. Walaalkay waxaan weydiiyey haddii uu wax iga baahnaa iyo haddii kale, laakiin igama baahnayn. Markaan albaabkii guriga saa u furay ayaan waxaan arkay waxaanan marnaba filanayn. Wuxuu ahaa gaadhi gurigayga hortiisa taagan. Gaadhigan waa gaadhigan markii ugu horreysay arkayo oo la yaab leh, qariiba. Gaadhiga waxa la yaab ka sii dhigay ee arrinta baqdin ka sii dhigaya ah inuu gaadhigani daaqadaha ku lahaa beersool aad u madow
oo qofka gudaha ku jira aanad arkayn, iyadoo taasi jirtana gaadhigu wuu shidnaa. Anigoo albaabka qufulaya ayaa waxaan haddana isku dayay inaan ogaado ama aan arko qofka gudaha gaadhiga ku jira, laakiin nasiib darro kumaan guulaysan inaan arko qofka gudaha gaadhiga ku jira. Waxaan dareemay inaan ka habsaamay kulankii, waxaanan degdeg u tegay kulankii. 2 saacadood kadib waxaa soo dhammaaday kulankii aan ku jiray, waxaanan si degdeg ah ugu soo cararay gurigii oon imaaday. Waxaan imaaday gurigii, waxaan arkay gaadhigii oo meesha taagan, laakiin markan way bakhtiisnayd. Gaadhigii baan ka soo degay anoo u orday dhanka albaabka, isla markaana ka baqay gaadhigan meesha taagan. Waxaan lahaa ka waran hadduu qof gaadhigan ka soo dego muxuu samayn karaya? Yaa ilaahi, waa maxay habeenkan la yaab kale? Maxaa gaadhigan ku khasbay inay meesha taagnaato 2 saacadood? Waxaan bilaabay inaan albaabkii garaaco, waxba laga yaabaa inuu walaalkay iga furo oo ii soo baxo, laakiin may dhicin. Walaalkayna waxaan caadadiisa may ahayn. Waxaan bilaabay inaan daydayo furihii jantadayda ku jiray, waanan helay, waanan iska furay albaabkii. Caladuul waxaan u koray jaranjaradii guriga, waxaanan kusii wajahnaa qolkii walaalkay. Laakiin markaan gaadhay qolkii walaalkay, waxaan arkay wax kadisa. Waxaan arkay qof dhex taagan qolka walaalkay. Qofkan waa qof markii aan ugu horreysay noloshayda aan arkayo, isla markaana waxaan maqlay walaalkay oo xashaashaqaya oo ilaahay iska ilaali qolka ha gelin. Idiima sifayn karo sidaan maalinka u baqay. Horteyda waxaa yaalay xal keliya, xalkaasoo ahaa inaan baxsado. Runtiina waan baxsaday. Waqti kadib qofkan qariibka ah wuu baxay, waxaanuu koray gaadhigii la yaabka lahaa ee guriga hortiisa yaalay 2 saacadood. Markuu tegay waxaan u imaaday walaalkay, waxaanan weydiiyey waxa meesha ka dhacay. Waxaanu ii sheegay inay qasabada biyaha xumayd, markaa inuu sidaa ugu baxay qasabada biyaha. Markuu kusoo noqday qolkiina wuxuu arkay shakhsigan qariibka oo dhex taagan, laakiin alxamdulillaah waxa muu xadin, cidna muu dhibin. Maalmo kadib waxaan ogaanay inuu shakhsigan yahay shakhsigii kommentiga ka soo bixin jiray sawiradaanu soo dhigno Instagram-ka. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan siduu ku ogaaday goobta gurigeena. Wuxuu ku ogaaday sawirkaas anagii walaalkay soo dhignay Instagram-ka ee aan guriga hortiisa ku galnay.